baahi loo qabo darteed sida la sheekeeyay xuquuq badan ayaa ku xiran da'da hubinteeda carruurteena hay'adihii xil saarnaa dhammaantood ama ha ahaadaan kuwa maxalli ah ama kuwa caalami ah maanta goobjoog waxaa u tihiin tababarka siyaasadda qiimeynta ama hubinta da'da carruurta marka cid walba kusoo qayb qaadato runtii waa u mahadcelinayaa aad iyo aad baa loogu baahnaa waxaan bogaadinayaa maanta halkaan inaan soo gaarno hay'adihii oo xil saarnaa dhammaantoodna ay noo fadhiyaan tababarkan labada maalmood ah oo runtii loogu talagalay inaan ka faa'iidaysano sidii aan u hirgelin lahayn sidaan u wada shaqayn lahayn hay'adaha u xil saaran hubinta da'da carruurta mahadcelintaas kadib waxaan rabaa inaan ku dardaarmo xeer kasta ama siyaasad kasta wax kastoo la soo dejiyo ku dhaqan ay u baahan yihiin hirgelin ay u baahan yihiin fulin ay u baahan yihiin intii laga lahaa waa la sharaxay labada maalmood joogtaana waa isu sharaxi doontaan waa isu sheegi doontaan tababarka kuwada qaadanaysaan laakiin waxaan dardaarmayaa inaad maanta saa wada joogtaan hay'adihii u xil saarnaa oo mandatedka u ahaa carruurta la shaqeeya kuwa markuu horeysa wada shaqayn hubin hirgelin intaas inay waajibaadkiina tahay oo aad qaadataan inaad labadan maalmood ka faa'iidaysataan oo aad yacni sidii sharci kasta ama xeer kasta ama siyaasad kasta hadday timaado waxay u baahan tahay dhaqangeline sidii lagu dhaqangeli lahaa aad adinku kala qaadataan si wada shaqayntiina hadhowti u wada hagaagto siyaasaddan dabcan waxa ay ka shaqeynayso waa la yaqaanaa idinkaan u fadhisaan waxa ay hagaysaa siyaasaddan dhammaan habraacyada iyo hanaanka qiimeynta da'da ilmaha oo aanan maadaama dalkeenu uusan lahayn diiwaangelin saxa dhibaato laga mutaysto halkaasna ay xuquuq iyo waajibaad ku lumaan ama lagu gudan waayo da'yartu waxaan ugu soo celcelinaa mar walba waxa weeye waa meesha bulshadeena kasoo bilaabato waa meesha bulsho kasta kasoo bilaabato bulshadii da'yarteeda dayacda hadhowta ayay bixinaysaa price weyn ayay bixinaysaa ama ha ahaato dhibaato la soo qaadato carruurtaas ama ha ahaato faa'iido ay ka waayaan oo jiilkii soo korayay berita mustaqbalkooda ummadda dhan ahaa inay waayaan marka aad iyo aad waxaan uga dardaarmaa in siyaasaddan oo aad iyo aad looga soo shaqeeyey waqti badan la soo geliyey aniguna aan saxeexay hirgelinteedii ood maanta u wada joogtaan oo aad beri u wada joogtaan inaad ka wada shaqaysaan dhammaantiin aad iyo aad baan idinla mahadcelinayaa kasoo qaybgalkiina dhammaantiin waxaan idin rajeynayaa inaad ka wada faa'iidaysataan labada maalmood iskana faa'iidaystaan dhammaantiin waxaan idin rajeynayaa guul waana mahadsantiin